سعيد عبد الله الدني مدحوينها عصبة بوتلان. سعيد عبد الله الدني waxa uu ku dhashay sanadkii 1966 magaalada Muqdisho. sanadkii 1972 waxa uu waxbarashada hoose iyo ku qaatay isla Muqdisho. sarana wuxuu ku dhameystay iskoolkii 1984 iskoolkii Sheikh Xasan Barsame. sanadkii 1990 waxa uu ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isagoo diyaariyay kulliyadda luqadaha. shahaadada labaad ee masterka wuxuu ka diyaariyay wadanka Malaysia. takhasuskiisana ahaa Master of Management. waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii hay'adda khayriga ee Tadaamun. sanadkii 1994 waxa uu soo noqday xubin guddigii waxbarashada ee gobolada Waqooyi Bari. Siciidani waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay hay'adaha ganacsi oo waaweyn, sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay howlaha dib u heshiisiinta deegaanada Puntland. sanadkii 2000 wuxuu ka noqday 2020 wuxuu ka noqday xubin ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya. sanadkii 2004 wuxuu noqday warshiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka. waxa uu ka mid ahaa musharaxiinta xilalka madaxweyne u tartamaya Soomaaliya. 8 bishii January 2019 waxa uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada Puntland oo ka dhacday Garowe. haddaba maxaa laga filan karaa marka uu ka dhamaado muddada sanadka ka yar ee u hartay madaxweynaha dowladda